mudana mukiilaan wiilkayga ayaa la afduubtay maalimo ka hor xitaa waxaan diyaar u ahaa inaan lacag bixiyo si wiilkayga liigu soo celiyo afduubahana dib liigu soo qabto booliiskan arrinkaas waan u sheegay waxba kama aysan qaban magaaladan afduubkan aad ayuu ugu tirabatay 2 maalin kadibna wiil ayaa la afduubtay oo famil laga afduubtay dadkaasna waxay isku dayeen burcadaas inay sawir ka qaadaan waxayna xitaa noo sheegeen in dilaaga ay gacanta ku soo dhigaan balse wiilkooda ayaa bala diliba wax caddeena ilaa ay hadda uma hayn arrinkaas ku saabsan marka waxaan rabay arrinkaas inaad guda gasho caddeen saxaana ka keento si kiiskaas uu xayiro waayahay maxaan ku qabtaa raalli noqo waddada farad xagga ayay ku taallaa laabadka gelaysa filimkani waxaa lagu tarjumay markaas kadib waxaan soo ogaaday gaangisarada ciyaarka afduubanaya inay 3 ka kooban yihiin sawiradoodana gacanta ayaan ku hayay dadka ayaana weydiisay ay igu sheegaan maama waxaan rabay qofka daroogada iibiya meexa soo degan yahay waraajifa istaag ba su'aal baan ku weydiinayaa ninka meel ku sheeg bal kana xaggas degan guri ugu dambeey xasan ma soo geli karaa soo galay ayaa tahay lacagaan wataa ninka daroogada iibinaya awa qolkaasuu ku jiraa يا توريا إدف هلا وريا وير أنكال وريك عسكري وانا قلعجي magacayga waa mukiilaan waxaana qaabilsanahay qaybta dambaarista mar walban waxaan jeclahay waajibaadka lay saaray sida taana noogu soo baxo midda kale waxaana meesha ka maqnayn inaan ahay qof mar walba dareemihiisa ilaaliya noloshiisana xiiseeya sheekadeenna waxaan ka maqnayn xaaskayga debi laakiinse nasiib wanaag farxaddeeda way baaba'day taasoo sabab u ahayd baaris aan hayay oo lagu magac daro howlgalkii x kiiskaasna wuxuu ku saabsanaa kiis dil ah isla mar ahaantaana kiiskan wuxuu noqday mid nolosheedoo dhan waxyaabo badan ka bedela marxuumadda magaceeda waa baryaa dilkaana waxaa u geystay ninkeeda oo lagu magacaabo kasiinaa midteeda kale wuxuu la yaabay sababtuu xaaskiisu dilay anagana markaa weydiin wuxuu dhahay ma baqaan arrinkan sababtaan uu sameeyey sidoo kale 2 biloodoo la soo dhaafay 3 dil ayaa dhacay 3daas dilna isla meeshii ayuu dilaaga ka dilay raadraac dilkan quseeye ma haystaan maya ilaa hadda caddeenka ma hayna dilkan xataa wax noo muujinaya baan arkay runtii annaga maadaama kiiskan aan ku wareernay waxaan ku khasbannahay inaan mukiilaha u dhiibno si oo warbixin cad noogu keeno sidoo kale arrintan waxaa garab ku siinaya dhakhtarkan shirka nagula jiro magaciisana waa firaan hadda maxaad u baahan tihiin inaan garab nidiga siiyo runtii dictor anaga kiiskan si ciidannimo ayaan u baray ilaa haddeertaane wax raadraaca maanan helin marka adiga waxaa kaa rabnaa si cilmu nafsi ahaan inaad u baato okay
maxaa dhacay gambaleelka waxaan u yeeriyey inaan ku ogeysiiyo gaaskoo ku furan inaad qubays aadee kaligaa maxaa qubaysan lahaynay iga dhaaf dhibkano maxaa dhahay hadda ma xishood bilow waxaa rabta maa iska sheegay kaal maxamuudina maxaa murugaysantahay ma murugaysni hadaba ma ku farxad geliyaa ma jeclaan lahayd inaad aragto ninkaaga siduu cayaaraya misena u heystaa தொடாதே கண்ணால் நீ என்னை மெல்லாதே மன்னதால் நீ என்னை அல்லாதே அழகால் நீ என்னை தள்ளாதே தனியாக நீ என்னை தொடாதே தொடாதே கண்ணால் நீ என்னை மெல்லாதே மன்னதால் நீ என்னை அல்லாதே அழகால் நீ என்னை தள்ளாதே தனியாக நீ என்னை தொடாதே கண்ணால் நீ என்னை மெல்லாதே மன்னதால் நீ என்னை அல்லாதே Look at my body, it is wow, wow, baby. Look at my skin, it's dazzling crazy. I'm too hot and too sexy for you, baby. Think about me, baby, night and day in your bed. In your bed. தொடாதே மெல்லாதே அல்லாதே தள்ளாதே முத்து மழைக்கு எதற்கடித்தேனே முத்த மழையில் மூழ்கிடத்தானே எதற்கடித்தேனே மொத்த முடிச்சு அகழ்ந்திடத்தானே கண்ணை பெருக்கும் எந்தன் கட்டுடலை கண்ட பின்னும் காதல் துடிக்கவில்லையா கட்டி முடிந்த நெஞ்சில் ஆசைகளை கட்டுகிறாய் ஐயோ வலிக்கவில்லையா பாதி ராத்திரி பத்திக்கிட்டு எரியுது வாடி வாடி அதை அணைக்க ஆதி மிருகமோ மனசுக்குள் திமிருது வாடி வாடி அதை அடக்க நீ வேறு நான் வேறா aflaamta hindiga maraykanka kartoonada iyo weliba musalsalada oo afkaaga hooyo ku tarjuman waxaad ka daawan kartaa bambroj.com பசி மூட்டியே பாத்திரத்தை மறைப்பது என்ன பெரிய சாபம் ருசி காட்டியே விட்டு விட்டு போவது ஐயோ பெரிய பாபம் டப்புன்னு துடிக்கிற மனம் இப்போ லவ்னு துடிக்கும் கட்டில் மெத்தையோ பட்டினியில் கிடக்குது விருந்து எப்பதான் கிடைக்கும் நீ வேறு நான் வேறா மண்ணை
tali shay baaristayaasha imaadeen tali isu ayaa la dhahaa anaga meeshan markaan imaanay waxaan aragnay labadan qof madax laga wada dhaawacay weliba dhalo lagu dhuftay gabadha dhiiggeeda waa uu dhammaaday dilka gabadha muddo dheer kama soo wareegan tali sidoo kale dadka ma kala dilay dhiigaashooda waa la isdhaafsiyey si loo fahmin ma fahantay dil noocan oo kale hore ma u aragtay adiga maya tali waa markii igu horreysay aan arkay dil noocan oo kale kuxushnimo ayaa loo dilay qofka dilkankiisana waa qof naxariista ay ka tagtay beri hore gabadhan naxaaskiisa ma aysan ahayn waxay ahayd gabar jirkeeda dilka markuu dhaco isla markiiba lagu soo weligeliyay adiga laakiin 3 saac kadib ayaana la soo wargeliyey waaye caddeemo dilkan ku saabsan haa waan helnay musqusha ayaana ka helnay tali aqoonsigiisa uma ekee waxay ahaataba aqoonsigan ayaa raadraac noo noqonaya qabo okay taliya waa ku fahmay war idinka maxaa taagantiin ordaan shaqadiina qabsada taliya ciwaankan ayaan soo hubin aniga taliya ma cabsidooya meeshaan dhiig badna buuxa dhiiga meelad ku yaala aan warbixinta booliska ay soo diyaariyeen waa kan ani dhiig badna ka cabsinooya waxaad ii sheegtaa in kiiskan warbixinta aad ka heseen ilaa intee la eg tahay kiiskan arrimo badan oo ku saabsan ayaan helay laakiinse dhammaantood cikis ayaa saaran laakiin malis dhihi karaa kiiskan ninka ka dambeeya oo dilaaga ah in tviyada barnaamij ka sameeya showyaal noocaas oo kale sameeya waa la dhihi kartaa dad hore waxaad iila kaatay qof kiiska nagu sii adkeen raba inaad tahay naga dahada midda kale ninkan sida wax u dilaya markaad fiirsid waxaad is leedahay waa nin aqoon fara badan u leh habka wax u dilaya habka wax u sameynaya runtii waa ka khilay ninkan natiijada ii soo baxdayna waa taasoo kaliya wax kale ma samayn kara aniga dad hore kaftanka iga daa nabta ayaan kaala hadlaya muddo 2 bilood kiiska afraad dhacaya inuu yahay ayaanu arkaa aniga marka aan fiiriyo saad wax u baaraysaan warbixintan aad u soo gudbinaysaan runtii waxaan dareemayaa ilaa hadda inaad xaqiiqda gacanta ku haynin taasna waa dhibaato arrintan ma sii socon karto dad hore xisaabta waxaad ku dartaa dilka inuu tirar badanayo walaalkii intee waa ii sheeg blue beach alla meeshaan blue beach aniga waxaana horta ma taqaanaa ma qofkaan ahay ma ku kasaay kumaataa ii sheegbo aniga xataa qofkaan ama isaqaano yaa sheekadaas ma ii keentay maxaa ku hadlaysaa adiga niyo maskaxda iga dhuntoo soo jilba jirta tartiib wuu ku baryaya caawalaalow waxaan ahay maba ogiba aniga maxaa kugu dhacay sheegbo seerjin iyo dirseerjin xaaskayga kafee macaan waana tegay haddaan kuu soo diyaarina soo dhaqsay maxay taas waxaan kan yiraah hirka badale maahino meesha meel degan ay egtahay midda kale gabadhaas yaa way saaree guduudan wadatay sheeg yaa gabadha ma kuu muuqataa adiga waa la arkaa laakiin wax maa la xasuusan kara kabtan ayay tahay iyo xasuuso bal waa tana gabadha linda ayaa lalaa 26 jir waay xaasayna ahayd ninkeedana waa qoraa laga yaqaana magaalada Kerala asiga iyo xaaskiisa isku iskool ay ahaa jireen 6 bilood ka horna waa isguursadeen labadooda micnihiisa jecel ay isku guursadeen ka wada daraska ay la degnaayeen tali aad bay uga cawaadeen dadkaasi tali sidoo kale 2 bilood kadibna jannaay magaalada la dhahay ayaa aadeen ma xaalad ma aad jirtay may
sidaan kugu sheegay ayuu dilka u dhacayaa Mr. James habeenkii xalay ahaa xaaskaaga ayaad dishay weliba si naxariis daraa ayaad midi ugu mudday haddana waxaa meeshaan u fadhinaa inaad noo sheegto sababta xaaskaaga midida aad ugu mudday ii sheeg bal sabab أنا حتى مو صوبتها مسمي يقبلس نصدق أسبابتها ودافي Mr. James waxaan ku weydiinayaa hal su'aal oo kaliya filmada dilka ma fiirsan jirtay ama filmada cabsida iyo waxyaabaha dildilka ka sheekeynaya أنا مايا ikaadi Mr. James adiga xaaskaaga xiriirkiina ma ahayn mid wanaagsan soo maaha ii sheeg هو فعلا قبل هذا وجه لاني لا أنت من Mr. James hadalkaaga waa been adiga xaaskaaga iskuma fiicneen أنا حاسكي مادن مسكحت الحلقاس حقيكم مخنت محسمي حاسكي لندا قعنتي ما قلت لي محسمي يعني دبعتي محوق يستقبل مسكين محسمي يعني قالت وين انقلي Mr. James adiga xaaskaaga ma sagaasheen مي حاسكي اسمه تقال وح حمانين نما دحمر maya hadalkaaga xogtiisa dhabta weli nama aadan siin way xogta dhabta maxay ya gabadha saniga inaan gacanteeda ku dilaa marba dee sidaas tahay khalad ayaan sameeyey wax fiican ma sameynin gabadhaas ninaad Mr. James wareerka badan iska daa waraysi ayaan kugu nimid warbixinna sii Mr. James doctor sidee ku suurta gashay nin naagtiisa si naxariis daraa inuu dilo mase suurtagelaysaa ilmo la'aan maadaama ay yihiin ayada ma dhashi tahay awgeed inuu u dilo ninkaas wax kasta way dhici karaan soo ma runtii aniga aqoon waxaan u leeyahay cilmi nafsiga laakiin adiga dhanka maskaxda ku takhasustay arrinta sidaas ma anaga hawsheena ayaa waxay tahay dilka markuu dhaco baaritaan inaan samayno arrintaas kor ugu baxay xaaskaaga iga waran bal waa sidii xaaladeeda maalmaha waxaa la yaabanahay waxa maskaxdeeda ku dhacay waxaan iloobay ninkayga nambarkiisa xataa waxaan iloobay waddadii aan guriga ugu soo laaban lahay gurigayga kan miya waxay ila tahay maskaxdaada dhibaato weyn inay ku dhacday xitaa waxaa laga yaabaa arrin dareen inuu kugu furan yahay ama stress uu jiro yaaqay gurigan maxaa ka qaldan jikada ila bedelo muu eko jikada maxaa ku dhacay maxaa aragtaa micnaha sidii hore ma iila eko maxaa kaaga muuqdo isbeddel ayaan ka arkaa waad ku khasban tahay isbeddel inaad ka aragto ileen ballanka ayaaba sidaas ahaa maxaa dhacay ma xasuusid miyaa inaan ku wada ballannay in jikadeen sida rumeeye si kale laga dhigo adigana ilooshaad maalmahan ku dheeraysaa doctor nafsi aad u baahan tahay arrinkaaga arrin caadi ah ma ahan waa arrin weyn isbuuca dambe ii imow raajadaada ayaan baaris ku samaynayaa kadib jawaabtan aniga ayaa kuusoo sheegay okay ay mar kale ku soo celi okay waaw macda ரோஜா பூவின் முதல் வாசம் காற்றில் சேரும் பொன்மாலையில் காதல் ஞாபகம் கண்ணில் ஊறுதே ரோஜா பூவின் முதல் வாசம் காற்றில் சேரும் பொன்மாலையில் காதல் ஞாபகம் கண்ணில் ஊறுதே காலம் தீர்க்கின்ற காலம் வரை கண்ணாளா காதல் செய்வோமே காலம் தீர்ந்தாலும் தீராதடி
to get right by. Love is in your heart, not a passerby. So listen to your heart and you get it alright, alright, alright. Love will tell you how to get right by. Love is in your heart, not a passerby. So listen to your heart and you get it alright, alright, alright. காலம் தீர்க்கின்ற காலம் வரை கண்ணாளா காதல் செய்வோமே. காலம் தீர்ந்தாலும் தீராதடி. உலகத்தை முகிலினம் மறந்தாலும் முதல் மழை நனைந்தது மறக்காது. உலகத்தின் ஒளி எல்லாம் மறந்தாலும் முதல் முத்த சத்தம் மட்டும் மறக்காது. இதழோ பழையதடி, முத்தம் புதியதடி. தேகம் பழையது ஆகும், நடைதல் புதியதடி. காதல் என்பது காமம் என்பது இரட்டை குழந்தைகள் ஒட்டி பிறந்தது. காலம் தீர்ந்தாலும் தீராதடி. பூமிக்கு மழை இன்னும் சலிக்கவில்லை, பூவுக்கு வண்டு இன்னும் புளிக்கவில்லை. ஆயிரம் இரவுகள் கழிந்த பின்னும் ஆசையின் துடிப்புகள் அடங்கவில்லை. போதும் என்றபடி இரவில் தூங்குகிறேன், மீண்டும் காதலை தேடி பகலில் ஏங்குகிறேன். உள்ளே எரியது உடை தருவாயா? சிற்றென்பம் அரசில் என்று தீயா. Love will tell you how to get right by. Love is in your heart, not a passerby. So listen to your heart and you get it alright, alright, alright. ரோஜா பூவின் முதல் வாசம் காற்றில் சேரும் பொன்மாலையில் காதல் ஞாபகம், காதல் ஞாபகம் கண்ணில் ஊறுதே. Love will tell you how to get right by. Love is in your heart, not a passerby. So listen to your heart and you get it alright, alright, alright. ரோஜா பூவின் முதல் வாசம் காற்றில் சேரும் பொன்மாலையில் காதல் ஞாபகம், காதல் ஞாபகம் kaniil urde. naqshadan idiin hortaalo waxay cadeynaysaa dilka maalmahan dhacay meelaha uu ka dhacay dilka koowaad halkan ayuu ka dhacay dilka labaadna halkan ayuu ka dhacay kan saddexaad halkan uu ka dhacay midka afraadna halkan uu ka dhacay dilka magaalada maalmahan ka dhacay waan aragnaa dambaarsadayna waxa muhiim ah inaan ogaano dilkan meesha iska la xiriiraan midda kale jawaabta shabeerkan water meel walba dil ka dhacay farahan ka soo qande waa kuwana sida aragto laakiinse baaritaan walba markaan sameeyno hal calaamad ayaa mar walba meesheeda ka soo muuqanaysa marka meesha waxa nooga cad hal qof oo dilka geysanaya inuu jiro kuwa kale ay falsiin muhiimadeena waxa weeye
sidaan gacanta ugu soo dhigi lahayn qofkaas dilaaga ah haddii kale dilkan baaxadiis intaan way ka weynaanaysaa وريا هاي يا طاي هذه هاي ما جز معك قوانا صوتك وريا ورصوتك حلقة ما يسمى صارنا هذا وركيب مخلوي مياس وريا صوتك وبكى الله لو كر الله وي وريا مالك لا كنت مدد ما وايسي كان انت صوتك ما وقتوقع دقاقين سك انا كوسا كرايا سك يا اخي ترتيب اسالي كان مقالد وكو عصب يا مالين اسالي الساعة مالا مسوردي إنا كوسا كرا حتى ميسويسي سك يا اخي كان والا يا مالين اما وحكى لا وري هوي يا طاي شكل انت كي ماده ما كسر دركت معي اما سوسو علانجسي meeshan gurigeeda miya maya saldhig booliis waaye oo adiga marka askari miyaa tahay maxaa indhama tarwarska qabtaa oo marka maxaad iga rabtaa ii sheeg arrimaaga inaan wax kaa weydiiyaan ugu talagalay oo aniga igu saabsana macnaha haa weliba adka ugu saabsan meeshaas maxaa ku saar ii sheeg maxaana ka doonta ma xasuusta horta meesha inaa kortay ma xasuusto ya oo maba xasuustid miya انت الى ما تحت محسوس تد ايوه وابه المانتي لكن ايوه adigu kuma tahay انا قف كان هيا ويردت ماسك شغا هذه اكثر درجتي او مالنا walaalkay hal xabad sigaar ma ku dhifanay sigaar mukab lagu dhaxbaa markina soconna ka tag naftaada mas'uul ka tahay أبو هذيك كل فنان ما يسيجار الله كجوست حقي يجي يوم كده ما شاء الله يفدي حمدين أنا هاي وريا ها كان مدح مسؤولش كيا مسوح كلا جرا أرنتي سوح مي كده ده ولا لا كنتوا ورر صناعي كان كيس إن لول دي ما بقى بوا مدفلا نجوت أنا جوا كتير أصوات جيرها هذا الشيء وعنكو دينا الشغلة مقبضك تاع markii xaqiiqda la hadla kasta waa iska adag tahay akhay aniga xoogaa hurdan dareemaya koodhe uun seexana dhulkan dhabacadsana waa dalan okay tan kale askari dhegeyso nalkan soo fiiro orod mii maqashtiin waxaa dhahay waa ku maqlaa zaa'id weli tan kale waxaan damacsanaa mala socota adiga inaa anigii dhegeysato keliya misanaan kaala hadlo wax adiga kugu saabsan waad i maqashaa mase weliba ku sii faahfaahay hadalkayga ugu horreyn askari dareenkaadiisii waxaan rabaa maskaxdaada waxa ku jiro dhan inaan mid mid u ogaado ugu horreyn saaxiibka duray akhbaartiisa ayaad ii sheegaysaa weliba adigoo xaqiiqada ii taabanaya hana isku dayin been inaad ii sheegto wax walbana siday yihiin ayaad ii taabanaysaa haddii kale أنا هناك هو أرنتي صور إجاسية. إسبتالك الدولة ده مدربه. إسبتالك الدولة ده. qofka geysanaya si faaja in loo geysanayo soo laga macquul ma midaasi waayahay dilalka dhacay oo dhan sidaan wada aragno hal nooc ayaa loo geystay warbixin iga sii marka warta midaasi dilalka dhan waa isku nooc
haddaba waan aragnaa dilalka faaji in loo geysanaa taasna caddeen waxaa waa calaamadda ageysa ninkii dilaaga hadduu faaji wax u geysanayo haddana waxaan dhihi karnaa waa nin aqli badan runtii maxaa yeelay siduu wax u samaynayo ayaa ah si uu ka taxadiri wax badan doctor ma xasuusta hadda kahor inaad igu tiri qofka dilaaga dilka arrin ayaa ku kalifta tali saldhigga booliska dil ka dhacay ma runba hadda sabax adiga ma la socotaa nin askari saaxiibkaaga ahaa inaad midi wadnaha kaga mudday weliba aad dhowr jeer ku celcelisay sababta kugu kaliftay may sheegi kartaa ninkaas cadowgayas ahay siduu ku noqday sabab badanaa jira ani asiga hal saldhigan ka wada shaqaynayn muddo 3 sano mar walbana waxaan isku dayay in arimahay khaso qaab daran waa ila dhaqmay waan u dul qaadanay laakiin tan waa adkaysan waay dabadeedna waa dishay naam xalay maxaan kala suubina qof wiliga ma dili miyaade ya weliba qof nacab zaid oo qabtid qasab waay waa dile meelan iska saaree hadalkaaga wuxuu cadeynayaa si ula kacay inaad dishay sooma maya marka hore dilkiis waa ka fikire been baa sheegaysa hadalkaaga kuma qanin ay waa ogaay akhay maxaa waay been baa sheegaysa xitaa hal mar aan la hadlan ninkaan waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay cilmi nafsiga raam kaliyan waxaan ku weydiinaa inta aadan dilka geysan ka hor afteenka ugu dambeeyay aad aragtay ma sheegi kartaa adigoo raaliya ma soo xasuustaa iftiin noocan oo kale maya naga dhaf ya akhay maya ya akhay see waay adigan kaa jawaabtaysi raamaha raamaha su-aasha aad iga jawaab ma xasuustaa qofka ugu dambeeya وحصوصتا بس وكتوها وحصوصتا نركلا يقدمي انا شيغا يا اخي يا وكتوها سك جوابته ugu ma helis sheeg wariya sheeg waa lagu hadlayaa jooji ku qabo nalka iga dhaf ya akhay sheeg aftin zaid way joojinayna maya qof malaadning ya akhay qof malaadning Raman يوها نيك مقعيس شيك يجي جواب سؤال كو ويدينا افتينك ما كان دينا هديك علي يوها خوف او ديل كان كو كلفي اي شيك مقعيس خوف الى كل واني ايمان يوها اي شيك خوف كاس ما اوغي يا اخي ما اوغي مقعيس اي شيك مقع دم الله يا اخي بين بتشيغيس انا كله مقع دم الله مقعيس مقعيس إيشك مقعيسة أنت أنا كجر دلشك دكتور أنا قلنا خلاص السؤال شو لويتي أدنى ما أنا بحكوا ديدان كاني وحول هذا وسيد جنان إنك سؤال تنوع أنا قلنا حبيبا دجوا مبرنا دكتور جلجلة عيا كابته إني كان نوع عنه كله وحده مسواش sidaas ma sax wuxuu u baahan yahay aqoon dheer ana ninkan si aqoon ku dhahantaa wax weydiinaa waan rabaa in wax walba sheego hadii kale wax badan isku dhaxyaaca inaan loo baahan yahay ma xoog inay ku daydo laakiin doctor jirjircanaan looma baana ninkan madax ayuu bal fiir haduu cusbana shalay way ugu soo socdaa رامل هذا كل هذا ما حسمينيس أنا محسوبيه وح مسوبني يا أخي ما حد عندك كويس أي شيء أيوة ما حد عندك وياه وح عن هاي مالها إذن كلا وح بين أركويسين أنا قتك دكتوركم حوك سويري madax ayuu kumbiyuutarka soo saar wuxuuna idhaa bari ii soo laabo anaa ka doonaya jawaabta yaakhay sabradan waa ku daal aniga hurdo ayaa ii hayso waan iska dhaafayaa oo keligaaga miyaa socda
taas muhiim ma aha ee jawaabta ii sheeg maskaxdaada ma ujeedaa waxaa ku furan booq unugyadeedana isma lahan dhibaatooyin fara badan ayaa kusoo wajahan maxaad ka wadaani ilaa hadda kuma fahmin waxaa jira cudur loo yaqaan alzheimer ya alzheimer kasma taqaanaa waa cudur mararka qaarkii maskaxda ku dhaco laakiin micnahaaga weli ma fahmin ilaa hadda ma aqaan sidan aniga wax kugu sharxa gabadhayda arrinkan waa virus sida kombiyuutarada gala oo kale maskaxdaada wixii ku jiro dhan wuu tirtiraya xitaa waxyaalo badan oo ay baaba'ayaan muddo kadibna jirkaaga ayaa isdhimaya ugu dambayntii waad dhimanaysaa daawo ma laha miya maya haddii aad dhimatana problem aad weyn ayaa meeshaas imaanaya marka aniga waxaan ku dhihi lahaa maskaxdaada si fiican uga fikir waxyaalo badanna waa inaad iska ilaalisaa xitaa waxaan ku hayaa ilowshahaaga inuu aad u sii fara badanayo waxaa laga yaabaa xitaa wax walbo inaad ilowda maalmo kadib telefoon ku hadladiisa xitaa waad ilaabaysaa waxaa laga yaabaa shaqadaada inaad aadi weyso waxaa laga yaabaa familkaaga asxaabtaadoo dhan inaad ilowdo xataa ninkaaga waad ilaabaysaa wax walbana meesha ayay ku dhammaanaya maskaxdaada xusuusteedana eber bay naqanaysaa ma garata gabadheed sidee arrintaa ninkayga ugu sheegaa ilaa intee aad xasuusataa adiga hadalkan hadda ku wadalan xasuusta hadalkaa ma jiro welwel maa ku haaya ii sheeg welwel noocaad soo hayn karase middaas ma xumo adigu waxaa u baahan tahay dhakhtar fiican inaad tagto oo maskaxda weli lagaa daaweeyey wax kale kuma haayo ditorisa waxaad ila muuqataa qof welwel fara badan oo haya maxaa ka jira yaa welwel micnaha ma anigu welwel i haayaane ii sheeg bal aniga maxaan ku dhahay waa iloobay yaa buu leeyahay infira biyo migu caawin kartaa xoogaa biyaha dhankaas ka cab okay ditoris waxaan rabaa waxa maskaxdooda ku jira dhan inaan ogaado ya ha isku dayin inaad soo fiiriso ya arrimaada xoogaa wax iiga sheeg armihayga maxaan kaaga sheegaa dhakhtar maxaad u noqotay sabab haween ayaa tahay maxaa dhahay adigoo haweena dhakhtar maxaad u noqotay hadalkaagu waa sax aniga habeen ayaan ahay hadalkayga hore iska ilow balse hadalka dambe ee hadda aan ku dhahay xoogaa wax ma ka xasuustaa sheeg hadda marka waxaa tahay dhan waad ogaadsamaa inaad dumar tahayna dabcan waa la socotaa haye dumarkana waajibkooda waa taqaana waa inay ragga keliya u adeegaan waa la socota taas waana kaa dadegsantaa soomaa mase waa kuu dhammaystira iyadana qofka ugu horreeyay aad daaweysana wuxuu ahaa nin soomaa waa la socotaa midtaas mase way ilowsantaa iyana ma kaa dhunta iyadana weligaa indhahda may qabteen nin dharka toortay misena dadka dhex qaadaya ma arki soomaa ninkaas qaawan markaad aragtay adigo dareenkaada siduu noqday ii sheeg waana qaliinka kuugu horreeyay maxaase samaysay qaliinkaas aad gelaysid kalsooni kuma aadan qabin marnaba ma aadan rabin inaad qaliin gasho haddana waxaad ku fikiraysaa ninkaas inaad gacantaada ku disho hadalkayga sidhaaf maa ku jira waan saxanahay soo maa haddii aan saxanahay ii sheegna fariimahan ku faray oo dhan ayaad hadda raacaysaa kulley aniga gacanta kuga hay mana ku talaabi karta fariimahan ها askari soo hadal haa mudane isbitaalka dowladda ayaa dil ka dhacay dhakhtarad ayaa geysatay magaceedana waxaa layidhahda anjanaa intaysan dilin ka horne waxay sheegtay inuu nin la hadla ayada ma taqaana ninka may ma aqaan tali isbitaalraama ayaa usoo tilmaamay isbitaalka sidaasoona ku imaan isaga ciidankan ayaa raadinayaan meel walba ha laga raadiyo
waddo walba isbitaalka galaysa baxaysa bandow alla saaro tali waan ku baryaa anaga gacanta ku soo dhigan jaarista si haddii ay macquul tahay maxaa ku hadlaysaa ma dilaagaasaan fursad siiyaa si uu dil kale u geysto middaas midaan yeelaya maaha idinkana caajiskiin maalmahan way ugu badanayaa muxuu ku hadlayaa waxaan waa wax laga yeeqsiyoodo waya taliya caawa ninkaas inaad gacanta ku soo dhigtaan ayaan ka doonayaa waya warbixin buuxdana waa inaad iga soo diyaarsaa askari taqrigu caawi sabradan ku hoos yaala ma aqoonsatay aqoonu malihi si fiican u fiir sawirkan ma xasuusto waa adiga aniga miyaa sawirkan waaba anigaba maxaa ku hadlaysaa laakiin waa aniga ninkii laakiin maba xasuustay say ku dhacday haddaba waxaan kuu sheegayaa sawirka gacanta aad ku hayso sawirkaaga inuu yahay is aqoonsi ayaan ku leehay yaa waa laakiin ninkan ma aqan tan kale waaba i eegyaaba tolka u eegyaa ninkan oo sawirkan hadda aniga miya muxma laakiin adigu yaa tahay aniga baddeeda ka baxee sawirradan si fiican u fiiri waaba dad dhintay ma noolo laakiin ma ka hesha adayga sawirradooda may kama helin aniga oo haddaada ka helin marka maxaad u haysataa waa shaqadeeda oo waaba shaqadaada miya shaqadaada maxay tahay su'aal ha i weydiin middaan ku weydiiya iga jawaab oo maxay tahay dilalkan dhacay adiga ayaan kugu tabaynaa inaad dilkan geysatay anigaan ku hortaaganaa haa sabab laakiin waxaan kaaga sheekanaya dilalkan oo dhan adiga inaad geysatay oo intaan lemeanta ka hadlayso olora dembi baar waxaa wanaagsan waxyaabo fara badan inaa ogaataya taasaanba doonayaa inaan ogaado maskaxdaada waxa ku jira maskaxda oo weliba dhankan madaxaada ku talama sheegaya mise haa middaasaan kaala hadlayaa waxaadna ii sheegtay adiga waxaad tahay ii sababta isbitaalka dawladda aad u tagtay ii sheeg maxaa dhacay oo sidaan oo dhan aad igu qaylisay sababtoo ay su'aasheeda ma aadan iiga jawaabin sabab hadda waxaan kaa doonaya su'aalihii hore inaad iiga jawaabto war naga tagaa ku dhah waad iska qaylinaysaa waxaan waxba inaan ku qaylinaya askari hal xabba sigaar igu caawi sigaar ma isii weydiinay weliba geesinimadaada mukula istaag waa ku barya istaag
maxaa adiga deganaan loo baahan yahay askari ninka madaxda ka gashay ruuxan oo kale deganaan u maya noloshaada wax badan ayaan rabaa inaan kaale soo bax jaankaan la hadal marka hore adiga deganaan sameeye waqbariyaa isdeji wax walba deganaan lagu dhammayn karaa ninka madaxda ka gashay su'aal badan weydiisay ifaan oo ku baryaa xaaladahan oo kale marka arag deganaan loo baahan yahay askari waxa maskaxdeeda ku jiro marnaba ma ogaan kartid waa daaraysaa arrimahaad wax iga sheeg askari waa sidaan hore kugu sheegay ninkan oo kale waxaa loo baahan yahay deganaan in wax loo weydiiyo maskaxdiisa waxa ku jira inaan ogaan rabnaa adigana ma xoog inaad ku daydid waxa aan ku faray keliya waa inaad si deganaan u samaysaa markaas guusha waan gaaraynaa qajoon muklaa maxaa kugu dhaca adiga isdeji waan ku baryaa waxaan dareemaa xogaa inaad isku dhex yaacsan tahay sabaxna kaxay waan ku baryaa sabax isdeji caadiyaan ahay soo dhaqaaji waan ku baryaa sabax kan waa baal rabaa su-aasheeda iga jawaab sabab maxaa tahay adiga haddaan mid ku weydiiyo naagtaada mala socotaa in khadada aniga aan kula wadaagayo ii sheeg bal maxaa raashinka ayadaa kuu soo dhibtay dembi baare wax dhibaataa jiro ii sheeg ya haa ma soo raaci kartaa doctor jawaabti daraad agtaada ka soo bixaysay dib inaad u baarta ayaan kaa doonayaa su'aalo gaar ayaan wataa war aniga haddii aadan kalsooni ugu qabin orod meelaha kala tagdee doctore jawaabtaadu way khaldan tahay mukula isdeji ku baryaa waryaa iga leexan ku dhahay mukula maxaa ku helay xasilooni sameey isdeji ku baryaa dhakhtar adna karaa lah wax walba dhacay okay dhib ma lahan iga celileg wiilkayga adiga arrima kuu qasayaa doonaysaa inaad samayso soo maa gabadhiina waxbaa kaluun annagayna la joogaysaa isbitaal ayay u baahan tahay balse isbitaalka lagama yaabo inaan geyno guriga ayaan ku haysanaynaa adigana arrintaas inaad ka murugtid looma baahno maya murugta bad iska daada maya haydhin wiilkayga waa ku baryaa gabadheeda xaalad adag ayay ku jirtaa xaaladdaasna hal mid oo keliya ayay ugu badbaadi kartaa wax kalena maaha anagina garabkeeda istaagna maxaa yaele cudurkaaga waa cudur aad u xun wuxuuna ku wanaagsan yahay waalidiinteeda inay la noolaato marka wiilkayga waa iga codsi baliisan baliis waa isku filanahay anaa ogaanaya xaaskayga madaxadayga badan kuuma wanaagsan adiga midaanoo keliya garab waa inaad igu siisaa wiilkayga waan la socdaa gabadheeda inaad jeceshahay balse waxaan ka codsanaa fursad inaad noo siiso guriga inay nagula noolaato haya fiiri நீயா என்னை மறப்பது நானா உன்னை இழப்பது நீரை நதி மறக்கலாம் நானா உன்னை மறப்பது ஜென்மங்கள் போனாலும் எண்ணம் மாறாதென்றாய் தீயிட்டு பார்த்தாலும் நெஞ்சு
அடி இப்போது மறதிக்குள் சென்றாயே சொல்லாத வார்த்தை நான் எங்கே பேச இல்லாத பாடல் நான் எங்கே பாட சொல்வாயடி சொல்வாயடி நீயா என்னை மறப்பது நானா உன்னை இழப்பது தேகங்கள் மாறும் மாறும் லோகங்கள் மாறும் மாறும் நினைவொன்றுதான் மாறாதது முற்காலம் இல்லை என்ற தற்காலம் சுவையே இல்லை நம்பிக்கைதான் வாழ்வென்பது நீ கொண்ட நினைவுகளோ சொல்லாமல் நின்று நான் கொண்ட நினைவுகளோ கொல்லாமல் கொன்றுவிடும் உடல் என்ற சகதியிலே மனம் மட்டும் மூழ்குவதோ கரையோடு கை பிசைந்து கணவன்தான் கதிருவதோ கணவன்தான் கதிருவதோ சொல்லாத வார்த்தை நான் எங்கே பேச இல்லாத பாடல் நான் எங்கே பாட சொல்வாயடி சொல்வாயடி நீயா என்னை மறப்பது நானா உன்னை இழப்பது laytarkan soo kaaga ma ayaa siisay mooga qofaan siiyey ha isku dayin been inaad ii sheegto xaaskaada caafimaadkeeda bal ka waran oo weli isbitaal ma aadan keenin miya waad ka aamustay xaaskaada xaaladdeeda ma fiicna sababtoo ah xilliyo fara badan ayay ku sugaysay xaalad dhibaatay ku dhex jirta markaas yaa la hadlaysaa adiga yaa kale adigan kula hadlaya oo arrintii shala waa ilowday miya daqayo naga aamus xaaskaada inaan kaa waraysta ma wanaagsano soo maa waa okey dhibaato ma laha tan kale weli waqti ayaad haysataa jaanis macnaha waad ka faa'iidaysan kartaa meeshan inaad ka baxdo lagama yaabo ilaa haatan arrintaas kuguma soo qaada aniga waxay ila tahay arrimaha xaaskaada inaad aad uga walwalsan tahay oodna rabta aniga inaan garab ku siiya sidaas darteed ayaad halkaan ii keentay mase ku qaldanahay caafimaadkeeda inaan wax kaaga sheego hey booqashadaadana dabcan waan dareemi karaa waan ku ogahay dilka faajifaajo ayaad u geysataa adiga damiirkaaba kaa dhintaba see ku keentay xaaskaadoo xanuunsan inaad weli shaqada sii wadato ma danqanaysid miya xaaskaadana uma nicisid aamus ilaa intee in la-eg ayaad shaqadan wadaysaa bal adayga waxaad ii sheegtaa dilkan sidaad u geysato
waxaad ka fikiraysaa xaaskaada dhimashadeeda iyo nolosheeda taasna aamus ayaan ku dhahay dilkan sideed u geysataa ii sheeg maxaad rabtaa marka ono inaad ogaato ii sheeg halkan soo fiiri waad saxan tahay waxaana loo baahnaa xaaskayga inaan ka fikiro laakiinse maxaan sameeyaa dembi baare ayaan ahay mana laga yaabo dadka kale maskaxdooda sidaad u qabatay inaad u qabato maskaxdeeda xataa familkayga kuma samayn kartid tallaabo noocaas haddii aad qaadaan natiijadeeda arkaysaa dadka noocayga saldhigga markii la keeno dadka soo booqanaya xataa way ku adkaanaysaa siday ku badbaadaan xaaskayga arrinteeda aniga ayaa xalinaya si kasta ay ugu qaadataba laakiinse mid suurtogelaysa maa maskaxdeeda adiga inaad la wareegto waan ka soo horjeedaa weli shacbiyaddu ay kuu baahan tahay adeer hadalkaygu wuxuu noqday mid ku qanciy soo maa nacam hadda laytarka gacanteeda ayuu ku jiraa arrimaada waxaan doonayaa qisooyinkaaga dhan inaad iiga sheekayso ma hadli karto soo maa ilin laytarka gacanteeda ayuu ku jiraa macno ma leh anaa kuu shidayo iftiin waa kaas hadda su-aashaan ku weydiiyey iiga jawaab noloshayda hadda gashamee macnaa waxaad rabtaa inaad weliba wax ka ogaato waan ka helay arrimahaada xaaskaada haddii aad rabto inaad badbaadiso hal wadda oo keliya kuu filan taasina marka hore waa inaad aniga ugu kalsoonaataa markaasay xaaskaada ku badbaadisaa balse inta ka horayso muglaan waan dareemayaa waxaad u baahan tahay inaan ku garab istaagan ku caawiya waxaan shaki ku jirin caawinaaddeeda inaad u baahan tahay hadda biyahan ayaa adiga ku dejinaya misena waxaad noqonaysaa qof deggan oo faraxsan weliba waxaadna noqon doontaa qof mar kale soo laabta sida anigoo kale ogsalaan mudan maxaa kugu dhacay sidaana maxaad ugu fadhisaa kor maxaad ka fiirinay ya aniga mame waxbana sidaan oo dhan maxaad uga cabsanaysaa maanta mame maxaa kugu dhacay mame waa fiicanahay waxbay ma gaarin ya adiga soo ma fiicnayd ya aniga waa fiicanahay soo qolka gudaha gal laakiinse aniga waa kuu soo laabanaa howlaa qabiyeyga kaale intee haydaasan yaqi kan maxaa ka qaldan maanta xaaladiisa sida hore maaha ninkan waa arrintiisa maxaan baaritaan ku sameeyaa aniga ayuu maskaxda iga qabsaday mashquul gooni ayuu yiri mukulaha runtii nin wanaagsan ayaa tahay shaqada qabatane aad iyo aad aan uga helay runtii
mideeda kale waajibaadkaaga si fiican aad u gudataa okay qorshahaaga xiga muxuu yahay hadda qorshayga xiga wuxuu yahay ninkan sababta uu waalan yahay inaan ogaado iyo maskaxdiisa buuq ku furan meeshuu ka yimid okay doctorka ayaan tusinaynaa marka horta aniga ninkan maskaxda waa ka baara horta dhiigga maskaxda inaan ka baaro kaliya ay dhammaan waana ka baara mid kale ayaa jirta laakiin way sheegi kartaa waxaa jirto dhakhtarka ninkan xaaskiisa baaray wuxuu ii sheegay maskaxda inay ka xanuunsanta xaaskiisa xaaskayga maskax xanuunkeeda waaba gooni laakiinse maalmahan waxaa dareemayaa in aniga maskaxda uu cudur ay ka soo socdo iyadana xal kale ayay u baahan tahay waa in la xaliyaa haddii aan dhakhtar ahaan u hadlana mukilla waa inaan nastaa adiga nasiin weyn ayaan u baahan tahay markaas ayay maskaxdaada degaysaa mahadsan doctor xaaskaaga deefi dadka isbitaalka ku jiro waa qofta ugu yar annagana ilaa iyo hadda waan dadaalaynaa jawaabteedana weli maanan arkin wareysi badanna waa la yeelana annaga booqashana maya lama ogolo annaga waxaan isku dayaynaa bisha ugu horreysa gabadha keligeed inaan karantiinno maskaxdeeda iyo ogaalkeeda si ay dib ugu soo noqdaan dadna ma noo imaanayaan booqashadana waa mamnuuc waa ku baryaa maantoo kaliya ila joog waan ku baryaa waa maanta oo keliya garkaagaan haystaa waan ku baryaa hay la yaabin aniga ooyinta ma joojin karo keligeena cidlada ha iiga tegin waxaan rabaa inaad ila joogto ilaa intii aan kaa dhahayo iska bax oon aniga ku fasaxayo waa ku baryaa hay cidleenin magaaladoo dhan baaritaan ha lagu sameeyo bandow ha la saaro waddooyinka tariinka garoonka diyaaradaha basaska meelaha ka baxa intaba meelaha dhan baaris ku sameeya waryaa sawirkaa ma aragteen makasaykanmakasas miya tali meelaha waan ka wayna nagood saaxiib mukada waa ii muuqataa inaad garab iga baahan tahay ninkan waa dilaa halisa weliba akhlaq far badan isticmaalaya ninkan aad arkaysaan waa nin maskaxda ka jira magaciisana waa maayan markaan baaritaan ku samaynay garoonka diyaaradaha iyo liisaska tareenada magacyada lagu qoro markii aan baaritaan ku samaynay sawirkiisana aan magaalkao dhan dhex dhignay waxaan ogaanay waddanka inuusan u dhalin oo dad shisheeye ka yimid si kastaba ha ahaatee sida ugu dhaqsiyaha badan riboodkiisoo buuxa waa inaan gacanta ku dhignaa kadib markii aan baaritaan dheer samaynay kuna laabanay airboorka waxaan ogaanay ninkan magaciisoo dhammaystiran mayank arograj inuu yahay wuxuuna u dhashay british ninkan runtii maraan gacantiisa fiirinaya waxaan ku arkay 4 calaamadood calaamadaas markaan si fiican u fiiriyey waxay ila muuqataa inay tahay khaniisho maskasna runtii ma aha da'diisa da' weyn waa mas da'yar masaska noocaas oo kale markay ku khaniinaan waxay leedahay laba dhibaatooyinkaas waxay kala yihiin mid adiga nafsadaada saamaysa ama mid qof kale dhibaato gaarsiinaysa oo markaas sii faafaysa qolada shaybaarka markay baaritaan sameeyeen waxay noo soo sheegeen dhibaatada maaya jirkiisa ku taalo in ay tahay mid noloshiisa virus ku abuurtay khaniishada maskaas waxay sababtay in jirkiisa ay ku abuurtay sun fara badan suntaasna waxay ku faaftay dhammaan dhiiggiisa suntaas waxay noqon kartaa mid asiga jirkiisa disha ama maskaxdiisa disha qaybta aan maskaxda naga tilmaamayo waa qaybta keliya qofka bini'aadamka oo go'aan ka qaato ama u soo saarta suntaas markii ay gaarto qaybtaas maskaxda ka mid ah waxay noqonaysaa qayb baaba'da maayarna cudurka waa noocaas oo kale
waxyaabaha oo samaynayna ma kala ogaan kara isaga waayo dictor xalka muxuu noqon karaa xalku waa hal keliya midaasna wax kale maaha waa cirbad cirbadaasna waxaa la dhahaa antidos waxayna ka howlgashaa maskaxda haddii cirbadaas la durana muddo 2 bilood gudaheeda waxay ku soo laabanaysaa maskaxdiisa sidii hore haddii aan sidaas samaynana maayir xaaladda uu ku jiro wuu ka baxayaa haddii aan laga gaarin dhibaatada ay soo wajahaysa waxay tahay fayraska jirkiisa ku jira waxay saamaynaysaa dhammaan bulshada dadweynaha beledkan degan waxaa la ogeysiinayaa nin maayar lagu magacaabo inuu soo baxsado weliba maskaxdana uu ka jiran yahay khatarna uu dadka u yahay waxaa la wargelinayaa dadka meel walba uu ninkaasi joogo inay booliiska soo wargeliyaan haddii ay arkaan haddii kale fayraska uu wato ayuu faafinayaa baaritaan kaloo dheer markaan samaynay waxaan ogaanay magaalada janay inuu guri ku leeyahay gurigaasoo martidu ku soo dhaweeyay haddana booliiska gurigaas ayay weerar dheer ku sameeyeen ninkan maayan lagu magacaabo asalkiisa hore wuxuu ku yimid UK isagii xaaskiisa kadib wuxuu aaday hoolka weyn ee martida uu ku soo dhaweeyo isaga asxaabtiisana hoodka ayay aadeen si ay xayawaanadu u ugaarsadaan meeshaas ayaa mas ku soo qaniinay أريا حالة جاكسنتا كاكا سودك يا أخش ما سهل كان كجران كهالارك وريا وامحي سيدا وسخ إيجا سودا alaabtan kalena ii soo qaada maskana baaris ku sameey sida ugu dhaqsiyaha badan haya tali ordaha taliya meel lagu magacaabo nakaliya ayaan waxaan ka helnay nin masas sida booliska miyaad problem u aragtaan waryaa ii banee waxayba ogyihiin cayaal college abo nina ku imaadi kaliinti ah ما شغله كل شو بيه ميلان اسمك دويا منك انك شقيسني يا اخي ارض يقوع اي هدي ليه يدب اوكي نعمل انا حلاي وريا استاك جاك دبا نعلا كو الويس
waryaada labadiin kor fuula اوكي اوكي labadiin kale xagga حتى هي قبر قبر استاك سيسكت abootayna furo xayta ayaa kursiga meesha dhigay yaa saxaawo gabadha waa ugu qosloosaa adnabi waa say ila tahay waaba ka helabo musaaf duwana ورناك يد مياوي ما عرفتي كبده انا ماين أنا قبل سيدة وريا ماين قعنت هذا كغاب يا هذا ليش هو كبر يا اسكداف مسكينك مسكين يصوب بحية يصوب بحية وريا أوه يقدر مسكين مسكين جدش أيوة ماي أو دوي أي اللي هو كبر يا اسكداف ماين مايا والمعاد قربتان قني يا مرلوات ماين واكبر يا اسكداف فلالو معاد قربتان معو كازمي هذا دي اوغلا ويسو مرلوات او خنينا الا ايغا اوغلاتي هذا بي اوغلو halkaaga sidaas haye maya way ogolaataa umaleha maya war adiga maxaad samaynaysaa bini aadan nuucaa tahay adiga waa kuu baahana ii imow iska day ninkaaga xaaladiisa aniga agtayda soo fadhiiso aniga kuu baahan aniga imaw ii soo dhawow mar dambe adaaba qosli dooninba qosalka waa lagu gaabiha aan ku dhahay qosalkaa tirada ka badisay ee kaal khayladana daa aamus agtayda imaw cariiriya kuu baahan maya idaaf kaalay dhuubo isiita wariga faquriya afakani ii kaalay dhuubo kaalay xaala kudee iskaga dhaaf ماين ماين معك ودعي سوف فعند حبيبي معك قلدا ماين لا ظلو قال ماين انت قاعد يسا هو كبر يا يقفقاني ماين ماشان ما ديك تقيسا بليز قال ماين ماين والمعك ودعي قرش العامة اسكي قلقلو يسامع عدا عسكا من كتكتي يا مسوكو دفتي بس واي
استجي wax walba hagaagay ninkan fiiri ninkan ma qosan kartaa si taan fiiri wajigiis si taan fiiri waa aniga maayankayga wuxuuna ku fiicnaa cilmi baarista wuxuuna daaweyn jiray cudurrada maskaxda ku dhaco wuxuuna aanin shaqadiisa si fiican u gudda haddana waa kana maayankayga intuu iga aaday wuxuuna ka soo jeedaa taamil ani asagana meeshaas ayaan isla joognay waxaana ahayn labadeena oo keliya dadka taamil ka soo jeedo magaaladaas ku nool wuxuuna ku dheereeyey sida maskaxda loo daaway iyo neerfaha wuxuuna ku dheereeyey dadka maskaxdooda ka luntay inuu dib ugu soo celiyo weliba qaab farsamaysan xirfad dheeraadna wuu u lahay daaweynta maskaxda anigana waxaan ahay asaga gacyaradiisa tijaabadiisa ugu horeysana wuu ku guulaystay markaas kadib ayaan waxaan go'aan ku gaarnay annaga intii inaan fasax u soo qaadano marnaba kuma fikireen annaga dhibaatooyinkan inaan faraha la gelayno dil ayaa magaalada ka dhacay dilkaasoona loo geystay nin magaalada laga yaqiinay oo koox madax u ahaa markii la dilay kadibna waxaa lagu sameeyey calaamad x ah dilkaasna waxaa loogu sheekay inuu ka dambeeyay ninka loo yaqaano mayan ciidamada dambe baarista markay baaris sameeyeen waxay gacanta ku soo dhigeen ninka loo yaqaano mayan sigaar mayso saaxiib ma iga cabsanaysaa maxaa dhacay abo maria ninka booskan dil xagga steve sabax doonta saariya ninkayna sabax مايان حبيبي مايان تلي مي مقليسة تلي يعني waxaan joogaa meesha dilka uu ka dhacay waxaana loo sheegay maayan inuu meeshaan joogo sidii ugu dhaqsiya badan waa in aniga gacanta ugu soo dhiqnaa haddii kale gaangistra ayaa dilaya anigu i baabi'iyey soo maha bal ha isku dayo mar labaad dib inuu ii baabi'iyo wecel leh aflaamta hindiga maraykanka kartoonada iyo weliba musalsalada oo afkaaga hooyo ku tarjuman xaaskaaga maxaan ka ogaysaa hawada qulqushiya waxay ila tahay xaaska inay qulqusho qaraabadi kadibna ay dhacdhaaday ay dhimatay oo xaaskayga inay dhimatay miyaad iiga sheekaynaysaa saaxiibaday aniya igu dileen saaxiibtaada dili war madil ee adiga gacantooda ku dili saaxiibatay been nafsadiidaa ku sheegin war ii sheeg ii sheeg ii jawaabaan ku dhahay iftiinkan soo fiiri
waxaan ku far oo keliya ayaad ku dhaqaaqaysaa iga qabta dadkan isoo raaca maxaad sugaysaa ay soo dabagelinaya isqaybsha may gudahaan gelayna anaga maxaa kugu dhacay maxaa waxan aawo isaga ii jawaab adiga ayaan kula hadlayaa aawo isaga aawo maxaa dhacay aawo isaga xagga ninkaaga noloshiisa daarata waa inaad anigii ogolaataa filimkan waxaa inay kale tan studio maskaha iska ruuga hoos xagga dhabsahay markay dharka gashanaysa xataa waxay u baahan tahay garab 6 bilood oo la soo dhaafay kaligeed ayay meel gooniyi fadhiisanaysay waxayna ka fikiraysaa arrimaha guriga mudana waan ku baryaa gabadhaas ha qasin way murugsan tahay waa iga codsi mahadsanid ima aqoonsan miya maxaa dhacay maya hadda ka hor ma kulannay ii sheeg bal maya ma kulmin aan iskaa baro magacii waa muklan நீயா என்னை மறப்பது நானா உன்னை இழப்பது maayan muddo dheer ayuu wuxuu raadinaya xaaskiisa aanee
anna wakhti walba waxaan ku dadaalaya xaaskayga inaan xasuusiyo inaan ninkeeda ahay sidaas ay tahayna way fahmi weysay dhibkayga ayaa sidaas ahaa தீட்டு பார்த்தாலும் நெஞ்சம் வேகாதென்றால் எப்போதும் நினைவொன்று இன்பம் இன்பம் என்றாய் அடி இப்போது மறதிக்குள் சென்றாயே ஒன்றுதான் மாறாதது முற்காலம் இல்லை என்றால் தற்காலம் சுவையே இல்லை நம்பிக்கைதான் வாழ்வென்பது நீ கொண்ட நினைவுகளோ சொல்லாமல் நின்று நான் கொண்ட நினைவுகளோ கொல்லாமல் கொன்றுவிடும் உடல் என்ற சகுதியிலே மனம் மட்டும் மூழ்குவதோ கரையோடு கை பிசைந்து கணவன்தான் கதிருவதோ கணவன்தான் கதிருவதோ